كير أنت كده قاعدين الجلية سكول الجلية هلك كصوب حي إسقى ما حد كفيل إسقى إنه رمى استمرها نيجي هلك كده جاي ويني والله جاي أبين الزنا يسته لكن إسقى هو أركي الزنا دون حما وكل عيته يعني دم بيتي وهذا هو لا إله يعفي صحيح كمان اللي هو أركي واحد وسبعين يتاي معي دمبي دبتنا إلهي بعرف سويدينية كير ماشى كو كوراك كله واي أي دمبي ونقطي عنا ده والله عناية دي مركلة تقام حد عيا وأركا بلشدة ودنا ده قاركود مكها وحيسور رجع ودنا ده قاركود أفرشير كاين لوجو بلعبه ورنقدر كده جستيد أفرشير كا وحلقو بلعبه يا أرورت ماشى تبي كان يلبى أبو لي كان يلبى هو يولي كان أبي هو يولي ما تغني وحاه الملا بقى أبالي ولا ما ماشي وقام اللوط المربينا كورصدان مركز ريجستريشن كمركز الله سميني يسكول كوحل لي ده لبى أبو لي هو يا ما لا يسوي كان يلبى هو يولي ولا بس سلامة ده وضنال ينا كان أبي هو يولي الماء عرورة سال وسوي تربية كلاسكا kindergarten 4 year markuu marayo waxaan filay ingiriiska imka 2020 ga la bilaabaya systemkaas ku baranaya wax lagu baraya maxaad u malaynaysaa markaa dawladihii shuuciga ahaa dadka islaamnimada qasab bay kaga saarayeen sida China imka wado China imka Turkistan sharqiya waa gobol muslim ah Turkistan dhul ay dhahdo muslimiin baa jiray bariga galbeed bay ahaayeen 1930 meelaha kan ayay ku duuleen Russianka iyo Chinese-ku midna Turkistan qarbiya buu qabsaday midna Turkistan sharqiya buu qabsaday kuwii sharqi qarbiga ahaa waa kuwa soo go'ay bay hadda ka mid yihiin tii sharqiga ahayd China haysta China imka 2 milyan 3 milyan oo qof buu intuu ururiyay ba kaamam lagu guro waxa la leeyahay wala humanize kareynay wala bini aadameynaya waxa laga maydhaya aqeedadiisa waxa laga maydhaya diintiisa waa wax kasta waa dad waaweyn haddana waxa la rabaa in la baabi'iyo waxa soo dhan laga maydho caalamul muslimiinna waa taageersan yihiin madaxda carabta aad arkaysaa iyadoo waxa la sameynaya bay bilada bixinayeen taas macnaheedu wax weeyaan wadanada shuuciga ahi dadka diinta qasab bay kaga saari jireen wadanada qarbigiisa ضغط المجتمع هي محاصرة الفساد للأسرة المسلمة أي عوامل ضاغطة من أجل تذويب الأقليات المسلمة وامحي عديدي قبل شيء إيوه فساد كرير كودن دول بكا قوي غارساني وفاكتورز كان صنايا إن يدتكم بالمان الصومالي ده هدا حوالي 30 سنة ده ودن بيه حوق وتغيير ميلانكم حصة باباي مركا ميلانكم حصة باباي إن أي وحبة واياه ضد بدني إنه عقيدة دي سوايه ضد بدني إنه أنه سيدي يوقف أن وحبر ربع سنين قال روحي قاعدين إنني وحبر رمينين ما لها فيسبوك يدي وحوقا قيل قيلين وقاركتان قارنا waxay u nool yihiin sidii aan waxba rumaysnayn kooran maayo waxba rumaysni laakiin qaabku u nool yahay waa sidii aan waxba rumaysnayn nidaamka tacliimiga ee meesha ka jira waa nidaam ummad waliba bulshadeeda da'yarta ah iyo xadaarada ay leedahay waxa ilaaliya systemka waxbarasho ee waddanku leeyahay hadday caqaa'id tahay hadday afkaar tahay hadday values tahay hadday mawaasiin iyo morals tahay akhlaaqiyaad ethics waxaasoo dhan dad walba education systemkooda u ilaaliya education system aan intaasoo islaamiya midnaba ilaalinayn markaad ilmaha ku darto uu ka soo baxo wuxuu noqonayaa waxaa jiray nin gabyaayo philosoph oo muslima oo Pakistan meelaha u dhashay India Pakistan iyo dhulkaasi markay isku jireen Pakistan ahaa Muhammad Iqbal baa la yiraahdaa waa nin double doctorate double masterate waxa sita
Cambridge University meelaha macallin waa hore ka 1905 kiibu macallinka ahaa waa nin gabiyaaya markaasi wuxuu ka warramayey caalamulislaami markii ay qabsadeen reer galbeedku tacliintii ay ku fardiyeen ay caalamulislaami ka dhigeen dadkii ay soo saartay waxay samaynaysay wuxuu yidhi atacliimu huwa alxaamidu aladii yudiibu shakhsiyata alkaa'in alxay uma yukawinuha kama yashaa tacliintu buu yidhi waa ay siidha lagu dhalaaliyo qofka bini aadamkee nool hadhowna loogu qaabeeyo sidii la doonayey yani professorkaasi wuxuu tilmaamaya educationku inuu yahay maxay ay siidh qofka intuu dhalaaliyo wuxuu rumaysanaayo oo dhan ka soo saaro qof kale waxaa jira nin gabiyaayoo kaloo hindi ah akbar alilaahi ilaabaadi la yidhaahdo markaa wuxuu sawirayaa gabay sukhriyo ah ayuu wuxuu ku sawirayaa tacliinku wuxuu sameeyo markaasuu wuxuu tusaale gabaygiisa ugu qaadanayaa fircoonkii masar wuxuu leeyahay alla fircoonkii tegey maxaa ceeb raacday buu tilmaamayaa fircoonkii masar maxaa ceeb raacday halkuu carruurta iyo fircoonkii yidhi de reer banu israiil wixii carruur ay dhalaan hala laayo sama ahayn wuxuu leeyahay maxaa ceeb raacday intuu carruurta leynayay muu kulliyada u fura buu yidhi iyagoo si kale u dhintuunbay usoo bixi lahaayeene يعني يوان مصري أهين بيصبح لاين كليات ما كقف اللاب ولا إن والله يو هل إن التعليم كنوع عصي دل يردي مرتي أو حكو برتي لا بقى يبود بين نقدين قيب كقولي ستي سي سعتي لا جامعة دق الشيء qaybtaasi in badanoo ka midi tadayunkii way ka tagtay diin iyo waxa meel bay iska dhigeen waa nin western oo madow oo wax la baray qaybihii wadi kari waayeyna dib bay u soo noqdeenoo quick money bay raadiyeen lacag degdega meel laga helo ilaan qofkii xirfad male waxba male klaaska tobnaad ama koob iyo tobnaad ama laba iyo tobnaad buu dirqa kaga baxay meel kaloo uu socdaa ma jirto soomaaliguna waa iska hanweeyo mushaharkan yare la qaataa kuma filla quick money buu raadinayaa lacag degdega meeshii laga heli lahaa lacagtii degdega ahaydna waxay la gashay suuqa mukhaadaraadka dabeetana mukhadar iyo ijraam criminals iyo xabsiyo ayay ku dambeeyeen qaybina musaxaadka caqligaa bay ku dambeysay soomaalidu waxay ka mid yihiin dadyawga ugu badan baan odhan karaa ee xabsi degan marka loo eego nisbaday waddanka ka yihiin iyo xabsiyada intay ka yihiin waxay kaloo ka mid yihiin dadyow aada ugu badan yahay xanuunadan madaxa ku dhacay inuu buufiska u bixinay markii dambe dadkan isla hadalku ku dhacay aad bay rag iyo dumarba ugu badan yihiin walidaalik baa soomaali badan oo iyagu isdishaa jirta haddoo galbeedka ku nool iyagu ama tareen isu dhigay ama daaris ka soo soomaaliya maad maqashay qof soomaalida xabad lagu dhuftay meeno qof meel iska soo tuuray muslima maqlaysid laakiin xaggoo waa caadi hadaad u maqlaysaa idan waxay dadkoodii u qaybsameen dad un identity-gii ka lubay intooda badan daayartii dambe waa jiraa midhan masaajidda ku hadhay laakiin mostly ma aha haddaba yurub deegaankeedii maxaynu ka faa'iidnay maxaa xuma ah maxaa sama ah aan weedho kookooban ka tilmaamo kow dhallinyaradii way luntay kuwii meesha ku dhashay intoodii badnayd way lumeen waxay u lumeen iyagu systemkaasaa dhalaaliyey waxbarasho ee la geliyey oo aanu jirin system islaamiya oo waxbaraya waayo system islaamiga ahi meel baa waxaa ka jira islamic schools laakiin waa qaali dadku ma wada awoodo in yar baa carruurtooda ka bixin karta saa daraaddeed dadka inta ugu badani public schoolskay carruurtoodu dhigataa laakiin ma tagaan islamic schoolsku meesha uu ka jiro dee inta ugu badanna kama jiro ka labaad madaaristu waa sabti iyo axad xoogaa qur-aanaa la qaybsiiyaa qayb markuu qaybana markuu teenager gaarana qur-aankana uu iska daayaa waanu ka lumaa dee qulwalla aad qaybtayna waxba kaa rabi maayo inta badan waa lumayn ama jaamacaad ha galaan ama sujuunta ha galaan labaduba waa lumeen qaliilan in yar baa badbaaday
qoladii dhallinyarada u badnayd ee meelahan ka carartay ee badaha ka booday ee doonyaha raacday ee wixii fidhfidhkoodu sii hadhay meesha tegayna dhafarrada intay xiirteen bay suuqa galeen naaga cadcad oo qaaqaawanaya inan yaroo 20 jira oo qaar badan yidhaahdeen carruur baan noo isku dhiibeenoo naaga cadcad oo iska qaawanaya waxbaa la helay magaalada dhinac laga galay dhafarrada la xirtay intii la sii socdayna salaadihii iyo cibaadaadkiiba halka dhexay kusii lumeen libiya iyo meelahan intaan la dhaafin iyo talyaaniga iyo intaan dhexe iyada uu guban yahay oo waxba aanu dhaaminkii xaggaa joogay buu meesha gaadhay kadibna mostly iyana waa baaba'een mostly waayo waxaa la geeyey dhul firidha dad badan baa iyana ka lumay guryihii muslimiinta ee galbeedka joogay wax badan oo ka midii way dumeen waa laga yaaba haddii laydin weydiiyo nin waliba oday reerkooda ahaa ama hablihii reeriin ahaa ee meesha tegey odaygii baa furay iyo islaantii baa la furay iyo waa wada maqasheen un baan u malay nin badan oo ka midii guryahaasina mostly waa dumeen